السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي دمان صاحبة خالقة كسو دبو بوغ لمقع بحي جيسياشي تاريخ دقالي رنانتي بوغان آدك وخيمها بدن دمانتي سمسو كوبي كرو بل سوحان كسو خاذنا إياه هل صحابي قاسنا خالد ابن الوليد ابن مخيرة رضي الله عنه الله كرا لنخذيه buuggaani run ahaantii waxaa ku jira saxaabiyaad aad u fara badan oo ka mid ah geesiyaashii rasuulka la soo halgamay. haddii aad xiiseynayso oo aad danaynayso waxaan soo dhigi doonaa telegram gruubkeena ku soo biir. waxaan kugu reebi doonaa qaybta descriptionka ama qaybta commentiga, halkaas ayaad kala xiriiri kartaa haddii aad rabto buuggaani. kusoo dhawow qisada Khalid bin Walid. dumarka oo dhan way awoodi waayeen Khalid oo kale inay dhalaan. Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu ayaa hadalkaas yidhi, hogaamiye dagaaleed midka ugu weyn ee soo mara taariikhda bani aadamka oo idil, hogaamiyaha ugu caqliga badan, uguna qorshaynta badan, uguna xeelada badan. asagoo hortiisa ma jirin, gadaashiisana ma imaanin hogaamiye kulunsaday dhammaan tilmaamahaas. ma jiro hogaamiye la barbardhigi karo. wax ka badan 100 dagaal ayuu galay, noloshiisana hal dagaal laguma jebin. Ruum iyo Furs oo awoodahooda dhan adeegsanayo ayuu ka adkaaday. argagax xoogan qalbiyadooda wuu ku abuuray. sheegidda magaciisa oo keliya ayay la argagaxi jireen cadowgiisa. waa seeftuu alla duldhigay gaalada. Khalid bin Walid radiyallahu canhu, maadaama uu yahay hogaamiyaha dagaalyahanada, maxaa laga yiray asiga? nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa yiray, Khalid bin Walid waa seef ka mid ah seefaha uu alla duldhigay gaalada iyo munaafiqiinta. Abubakar as-Siddiq radiyallahu canhu wuxuu yidhi, dumarka oo dhan way awoodi waayeen Khalid oo kale inay dhalaan. sidoo kale wuxuu yidhi isagoo u jawaabayo Cumar oo dalbaday in Khalid xilka laga casilo, ma ay mid deminayo seefuu alla duldhigay gaalada. Cumar bin Khattab radiyallahu canhu markii ay geeridiisa soo dhowaatay ayuu yidhi, haddii uu joogi lahaa Khalid, isaga ayaanu dhiibi lahaa maamulka islaamka. marka rabbigee uu i weydiiyo ciddaan mas-uulka ugu dhigay ummadda nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam, waxaan dhihi lahaa, rabbiyow, waxaan maqlay nebigeena oo leh Khalid waa seef ka mid ah seefaha uu alla duldhigay gaalada. waxaa hadalladaasi ka yiray Khalid bin Walid radiyallahu canhu waa nabigeena Muhammad sallallahu calayhi wasallam iyo Abubakar as-Siddiq radiyallahu canhu iyo Cumar ibn al-Khattab radiyallahu canhu. haddeerna aan u gudi galno qisada Khalid bin Walid radiyallahu canhu. Khalid bin Walid radiyallahu canhu waxa uu ku dhashay magaalada Makka sanadkii 592 milaadiga. aabihiisa waa Walid bin Mukhayra, mid ka mid ah hantiilayaasha Quraysh. Khalid dagaalkii Badar ma uusan ka qayb galin sababtoo ah ma uusan joogin oo waxa uu ku maqnaa Shaam, balse waxa uu ka qayb galay dagaalkii Uhud. waxa uuna ku lahaa kaalin muuqata. isaga ayaa sabab u ahaa in muslimiinta lagu dhibaateeyo dagaalkaasi. Khalid waxa uu soo islaamay sanadkii 8aad ee hijriga ka hor furashadii Makka. Khalid bin Walid radiyallahu canhu waa hogaamiye ka mid ah hogaamiyaasha islaamka ee jihaadka iyo aqoon-yahanka keliya ee laga bartay maamulka iyo hogaaminta dagaalka. xilligii uu noolaa wuxuu edbiyey gaalo badan, wuxuuna galay dagaalo badan, wuxuu wajahay cadow kala duwan, wuxuu kaalin muuqata ka qaatay dagaaladii riddada. xilligii uu noolaa nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu galay dagaalo fara badan. tusaale buuxana waxaa kuugu filan dagaalkii Mu'ta, uu nabiga sallallahu calayhi wasallam ku magacaabay seef ka mid ah seefaha uu alla duldhigay gaalada. markii uu dhintay Khalid ilaa iyo hadda taariikhda geesinimada leh maalinba maalinta ka dambayso way sii caanbaxaysaa. waxaa lagu daraaseeyaa macadyada iyo jaamacadyada muslimiinta iyo gaaladaba. isaga ayay ka barteen dagaalada iyo maamulkiisa. waxaa jira kaarto su'aal ah, Khalid intee ayuu ka bartay dagaalka iyo maamulka? dhab ahaan kama uusan baran macad ama jaamacad midna, ee waxa uu ka bartay madrasada nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam. caqiidada islaamka ee saxiixa ah iyo geesinimadiisa ayaa ka dhigtay hogaamiye dagaal oo dhan walba ah. islaamka ka hor Khalid ma ahaa dagaalyahan, dhab ahaan maya, keliya waxa uu halgami jiray noloshiisa. inkasta uu ka soo muuqday dagaalkii Uhud iyo dagaalo kale isaga oo muslimiinta ka soo horjeeday, xilligaas ma uusan lahayn geesinimada iyo khibradda uu helay islaamnimada kadib. halkan kuma soo koobi karo dhammaan taariikhda hogaamiyahan qiimaha badan, balse waxaan ka tilmaami doonaa
wax yar oo ka mid ah geesinimadiisa. Waxaan soo qaadan doonnaa dagaalkii Mu'ta ee uu ku helay magaca qiimaha badan ee seeftii Alleh. Khaalid bin Waliid radiyallahu canhu wuxuu ka mid ahaa ciidankii muslimiinta ee ka baxay magaalada Madiina. Ciidankaas oo tiradoodu dhammayd 3,000 oo askari ah, kuwaas oo wajahay 200,000 askari. Hogaamiyaha koowaad ee dagaalka waxa uu ahaa Zayd bin Xaarith radiyallahu canhu. Khaalid waxa uu ka mid ahaa ciidankaasi, balse ma uusan ahayn hogaamiye. Sababta dagaalkan waxay ahayd in loogu argudo wafdi Nabiga sallallahu calayhi wasallam u socday oo fariinsida ahaa, kaasoo jidka uu u galay nin la odhan jiray Shuxrabiil bin Cumar, kaasoo si fool xun u dilay. Markaas Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu diyaariyey ciidan ka kooban 3,000, wuxuuna madax uga dhigay Zayd bin Xaarith, haddii la dilana Jacfar bin Abi Daalib, haddii la dilana Cabdullaahi bin Rawaaxa. Libaaxyadii muslimiinta waxay tageen goobta dagaalka, waxayna hor istaageen ciidan tiro badan iyo hub intaba ka badan, balse geesiyaasha Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam uu soo diray halkii nin iyaga ka mid ah wuxuu u dhigmay 1,000 askari, hadafkooduna waa janno. sidaas darteed dhabarka ma soo jeedin ee cadowgooda ayay argagax ku abuureen. Ciidanka muslimiinta kuma aysan tashan markii hore inay la kulmayaan ciidan tiradaani leh. Hogaamiyaasha ciidanka ayaa kulmay iyaga oo ka tashanaya arrinkan iyo sida ay wax yeeli lahaayeen. Cabdullaahi bin Rawaaxa oo ka mid ah hogaamiyaasha ciidanka ayaa yidhay, dadow wallaahi tan aad nacaysaan ayaa ah midda aad darteeda u soo baxdeen adinkoo raadinaya iyada, waana shahaado. Dadkaanna kulama dagaalamayno tiro iyo awood badnaan midna ee waxaan kula dagaalamaynaa diinkan uu Alle nagu karaameeyey dartiis. Aan horay u socono, laba mid ayay noqonaysaa, guul ama shahaado. Kadibna dagaalka ayaa si xamaasad leh ku bilowday. wax yar kadib waxaa la dilay hogaamiyaasha muslimiinta ee 3 ahaa. Kadib dagaalyahanada muslimiinta ayaa ku tashtay Khaalid, ayayna u doorteen inuu hogaamiyo. Khaalid markii hore hamigiisa ma ahayn hogaamiyenimo keliya, wuxuu soo raacay ciidanka muslimiinta ee ay hogaaminayeen rag islaamnimadiisa ugu soo horeeyey. Khaalid markuu qabtay hogaaminta ciidanka wuxuu dagaalamay dagaal kharaar oo aad u xamaasadaysan. Imaamu Bukhaari waxa uu Khaalid ka wariyey in maalinkaas ay gacanta Khaalid ku dhammaadeen 9 seefood. Nabiga sallallahu calayhi wasallam isagoo ka warinaya dagaalkaas ayuu yidhi, calanka waxaa qaaday Zayd, waa la asiibay oo wuu dhintay. Haddana waxaa qaaday Jacfar, isagana waa la asiibay. haddana waxaa qaaday Cabdullaahi bin Rawaaxa, isagana waa la asiibay. ilaa calanka uu qaaday seef ka mid ah seefaha Alleh. waxa uu la jeedaa nabiga waa Khaalid bin Waliid. maalinkii oo dhan ayuu dagaalka u socday. markii habeen la gaaray, qoraxdiina qarsoontay, ayuu ka faa'iidaystay Khaalid fursaddaasi weyn. wuxuu isbeddel ku sameeyey ciidanka. kuwii midigta ka dagaalami jiray ayuu bidix geeyey, kuwii bidixna midig ayuu geeyey, kuwii dhexna horey ayuu geeyey. intuu nidaaminta ciidanka ku jirana waxa uu sameeyey wareeg iyo buuq si cadowga ay ugu maleeyaan inuu gurbad soo gaaray. marka uu waaga baryey, labadii ciidanna ay is hor istaageen, ayaa gaaladii waxay arkeen wejiyo cusub oo aysan markii hore arki jirin. markaasna waxay aamineen in gurmad cusub uu yimid. hogaamiye Khaalid asigana qayb ayuu ciidanka dagaalka uga saaray. sidaas ayuuna Khaalid ku awooday inuu ciidanka ugu saaro dhibka iyaga oo uusan wax jaba soo gaarin. qalbiyada cadowgana argagax ku abuuray, oo xitaa gaalada waxay awoodi waayeen inay soo dabagalaan ciidankaas tirada yar. Khaalid bin Waliid iyo ciidankiisa waxa ay gaareen magaalada Madiina, waxaana soo dhoweeyey Nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo muslimiinta. Khaalid bin Waliid radiyallahu canhu waxa uu door muuqda ku lahaa burshooyinka ay muslimiinta ka sameeyeen dhulalka Furus iyo Ruum. Abubakar as-Siddiiq ayaa markii uu ka takhalusay dhibaatadii riddada oo muslimiinta awooddooda daciifin rabtay, ayuu ku amray Khaalid inuu u jihaysto dhanka Furus iyo furashadeeda. kadib markii uu Khaalid ka soo dhammaaday dagaaladii riddada, Khaalid waxa uu ahaa hogaamiye uu Abubakar as-Siddiiq u adeegsan jiray meel walba. waxuuna Abubakar dhihi jiray hadal micnihiisu ahaa, ilaah baan ku dhaartay, Khaalid ayaan ku iloobayaa waswaaska Ruum iyo shaydaanka. Khaalid isagana ma uusan hoojin kalsoonida Abubakar oo Shaam ayuu ka tegay wakhti aad u yar, isagoo gurmad u noqday ciidan muslimiinta ah oo halkaas joogay. wuxuu mideeyey ciidanka muslimiinta ah. gaalada Ruum ayuu kula kulmay waadi lagu magacaabo Yarmuug. halkaas ayuu cashar wanaagsan ugu dhigay gaaladaas. aad ay u adag tahay inaan halkan ku soo koobo taariikhda iyo geesinimada nin ay awooddiisa iyo xirfaddiisa la yaabeen, xitaa gaaladii uu la dagaalamay, heer ay reer galbeedka ku tilmaameen in uu yahay
jenaraal islaami ah oo ay ka wadaan hogaamiyaha guud ee ciidanka islaamka, waana darajada ugu sarraysa. qaar kaloo iyaga ka mid ahna waxa ay dhaheen waa hogaamiye ciidan kan ugu caqliga badan, doodahana si fudud ugu takhalusa, iyo hogaamiyaha ugu weyn taariikhda bani'aadamka oo dhan. taariikhdiisa iyo xirfaddiisa dagaalna waxaa lagu bartaa jaamacadaha iyo macaahidda qaaradaha Yurub iyo dowladaha Carbeedba. ugu dambayn, Khaalid bin Waliid radiyallahu canhu waxa uu ku dhintay Ximis 18 bisha Ramadaan 21 Hijriya. Khaalid markii ay geerida u timid, indhihiisa murug ay la ilmeynayeen. ma ahan inuu geerida ka cabsaday, ee wuxuu jeclaa shahaadada Alle dartii ah ee uusan nasiibka u yeelan. waxa uu dhintay isagoo ay jirkiisa meel walba seef ugu taalo. Alle raali ha ka noqdo hogaamiye Khaalid bin Waliid radiyallahu canhu. annagana Allah naga dhigo kuwa ku daysada, kuwa qiyaamaha lala soo saara. waad ku mahadsantihiin saaxiibayaal daawashada qisadaani. intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga, waxaan idin leeyahay guulaysta goor walba oo aan ku dayayno saxaabadeena iyo rasuulkeena sala allahu calayhi wasallam.